يسويمي قدومياشا قبل الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي يسويمي وينه قبل كسول سناق عين waxaan halkan ka dhigaynaa xafladii aan ugu dabaaldagaynay madaxweynaha cusub ee federaalka Soomaaliya hoosna taga خاتمة استاد of Soomaaliya waxaanu halkan hambalyo iyo salaam uga diraynaa dawladda yada ka dhalatay Muqdisho ay ragaygu ka dhaliyeen ayaanu halkan salaam iyo hambalyo uga diraynaa waxaanu soo dhaweynaynaa oo aanu leenahay hambalyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha iyaga cusub ee noogu muuqday sida dayuxu maalinta uu yahay 14 sida uu adduunyada u ifiyo noo soo gaaray iftiinkiisu ayaanu halkan uga hambalyeynaa waxaanu leenahay hambalyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya gabdhahaas oo ah noqdana aabihii wadanka iyada oo Soomaaliya maanta uu bariyay waa cusub ayna u soo baxday qorrax cusub una u soo iftiimay iftiin weyn oo indhaha maanta ee Soomaaliya ay furatay adduun weynahooda maanta indhaha ku hayo taa oo farxad weyn annaga noo maanta annagoo adduunka wax ka ah oo la loolami kara caalamka oo kamid ah tobankii bisha Soomaaliyeed ee waaqa cusub u bariyay ummadda islaamka oo dhan waanu salaamaynaa wixii danaynaya waanu salaamaynaa aad iyo aad baan u tahniyadaynaa madaxweynaha iyaga cusub ee la doortay ee sida xaq ah sharafta ku jirto oo indhaha caalamka soo jiidatay lagu doortay waanu u tahniyadaynaa waanu u ducaynaynaa mabruuq baanu ku leenahay Xasan Sheekh Maxamuud ilaahay ha kugu raajiyo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfacayna Allah ka dhigo madaxweynaha cusub waxaanu ka codsanaynaa dawladdu koonfur bay ka soo dhaqaaq weyday inay waqooyina timaado allahay dad islaam baanu nahay oo ku banaan baanu calanka maanta dhashay dawladda dhalatay waxa dhalisay Khaatuma State of Soomaaliya calankii ay u xirtay iyo ayaanu ka baryaynaa waxaanu adigana ka baryaynaa Xasan Sheekh oo aanu tahniyad kuugu soo diraynaa kii waxaad noqotaa kii lagu nasto ee aan Soomaali kala shaandhayn ee Soomaali mideeya ee Soomaali walaaleeya ee qaxoontiyadooda dhulka waran soo xireeya oo ku soo celiya dalkoodii aad iyo aad ugu faraxsanahay dawladda maanta xamar intii hore aan laga bilayna maanta laga bineeyay dhulka laga soo bineeyay xamar lagu bineeyay taanu ku faraxsanahay waa taa ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa isaga casawatale xilka weyn Allah ku fududeeyo wala dhameeyay tahriyadii wala dhameeyay salaantii wala dhameeyay in yar baan anigu ku darayaa oo ah dawladda Soomaaliya waxa laga dhaliyay waqooyi waxa loo raray koonfur waxaanu doonaynaa dawladdu inaanay koonfur ku ekaanin ay ilaa wadankii laga dhaliyo si marto Soomaaliya isugu barto waxaanu wiilka madaxweynaha uga ducaynaynaa ilaahay inuu hawsha u fududeeyo oo Soomaaliya isu keeno waxaanu doonaynaa dawladdu inay soo timaado waqooyi oo ilaa meesha qaxootigu joogo ilaa meesha laga soo asay tagto ayaanu doonaynaa oo hayraad kismaayo ay tagto meel kasta oo Soomaaliya joogtana ay timaado ayaanu doonaynaa dawladdu inay kursiga xamar ku ekaan baanu doonaynaa intaasanu madaxweynaha ka codsanayna ilaa Allah u ducaado